maane beesha caalamka ka imaatay waana ka aqbalnay maxay ka macno tahay gudoomiye arrintan hooyada iyo caalamkaad sheegayso iyo eygii ku soo dirsaday iyo adigoo ey oo dhanba orod meeshooda ugu kac wadankooda fiiraan warkuu sheegay annaga wadanka annaga oo xurriyadda 3 sano aanan haysan oo ingiriiska uu naga tegey ayaa ninkii madaxweyne ku-xigeenkii madaxweynihii Jaramogi Oginga Odinga iyo waxaa isqabsaday ninka la yiraahdo Jomo Kenyatta Jomo Kenyatta wuxuu yiri wadankan waa xor biir waan xoreynay biir gumaystahana waan ka xoreynay biir ninka gumaystaha wali daba socda ha ugu taga wadankooda xagga dabada ha ka leef bacha wallahi matako huko kwaaw macnaheedu waxa weeyaan orod meeshaasito ugu noqo maxay ahayd qurun iyo maxay ahayd gabaad ugu noqo annaga wadanka anaga xor buu noo noqday waayahay maamulada ninka beesha caalamka beesha xamar gudaheeda kale oo la fiirinayo oo nin safiir oo kale intuu jilbaha isku dhaadhaca ka bacdi dawra ordayo iyaga ilaalinaya meesha dhan inta laaba laga qaado xalana horta waxa weeyaan waa qarankay kamid tahay ciidanka Amisom ka amar la siiyo nidaam kudi la yiraahdo wixii command and control ka hatta ciidanka Amisom inay la wareegaan dawladda Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya inay la wareegto meelaha halbowlaha oo gudaha iyaga al-shabaab inay kala dagaalamaan dibadeed ma inay Soomaaliya gudaheeda arrimaheeda dhex galgalaan oo loo isticmaalo ma mana loo isticmaali karo وهذا هدي مارتي إذا ما دي أنا ما قرنا واحد كسر هذا مع دي لواح يمحي قرقر ويد واحد دون لك إذا ما دي قرن كالصوماليات أمر هدي لصيو ويسكيا قرينا ماشي أو حلو بهين أمر هدي لصيو ودن لهانتو دبك أجنبي وماشي كوجرينا ورقد لقرا وريك تكلمة كفلا ها عبد الله فرماجو نين الله لنك أجنبي أو كوجرا ماشن هذا اسكسو دوان قلنا وايد تدوبر الجذهد يروح ودك كهايو وحاويان وحنو قادرين إنه شرع الرود دنك وكشوف أنت كلمة كفرة أدونك أن كل شيء أدونك هبل كحوك بدل متشف أنا كل شيء وأنا قصة صومالي كل سكان ناس تايوان بأوجرتها تايوان بأوجرتها تشاينا بأوجرتها على ستريت يربا ودحيا كيوبا بأوجرتها أمريكا كسجاشن كيلومتر oo maaragtay ay waxay doonto ku sameyn karo kiiba oranaysa orday xaga maaragtay Mareykanka adaa lagu yiraahdaa kiriya kud lagu oranay waayahay gudoomiye waa maasantahay waxaan rabaa iyagu qudhooda beesha caalamka safiirka qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo midka Mareykanka u joogaba hadii siyaasadda Soomaaliya dhexdhexaad ka yihiin tanaasulaadka uu sameeyay madaxweynaha oo adiga ba hadda gudoomiye aad ka soo sheekaysay intay arkaan xalka fiiriyaan soo ma qumanaan lahayn inay yiraahdaan tanaasulka madaxweynaha qaranka uu sameeyay iyo saddexda maamul gobol ee kale iyo gobolka Banaadir isku duuban labadiina ma fahmi karno ciladaha hadda jira sheeganaysaane soo heshiya madaxweynaha wuxuu joogaa filada la soo heshiya waxaad la soo heshiisaan ummadda ula soo baxa inay dhahaan miyay ahayd mise waxa qumanay sida hadda ay sameeyaan oo xalana gadaal ay ka gishtaan warheed waan kugu bilaabo waxaan ku yiri Imaaraat iyo wadan kale Afrikaan ah waxaan daacuftan meesha ordayso oo dhanba ma aragtay oo yeeyday waa la soo diray libaax soo diray waa Mareykanka iyo reer galbeedka arkaysa Ingiriiska Scandinavianska oo Norwegianka kulli waxa siitay weeyaan marka iyaga afka kuma dhawaaqayaan oo hadda waxa weeyaan xeeladii ay waligood isticmaali jireen ay isticmaalayaan laakiin dhab ahaan waxa ka dambeeya waay shirka birri marka ninkii loo baahnaa inuu yiraahdo listen dhageysta yiraahdo sidan baan sameynay idinka maxay tahay afkaartiina kale hatta la doodi laha ma waxaad istusteen dimuqraasiya noocan hadda ayaad istusteen tahay maya hawada heshiyan ma lama heshiinayo nin khariban oo khaldan tuug adi maxay qori haysto umada boobahay online hayo iyo booliistii la rabtay inay tuugada soo qabatay ma heshiin kartaa marka waxa loo baahan yahay si cilmiyaysan in loogu sheego marka hore present your case laakiin at the end of the day ugu dambeyntii go'aanka ana iskale adimid ana qaranka Soomaaliyeed waa xor waa sax waay had inta kali waliba haduu dhahay waliba he reads the rights act haduu ku yiraahdo hadaad ku xad gudubtaan baalki tilaabo cad oo maaragtay diblomaasiyada oo adduunka dhanba ka ahayd ayaan maartay ku dhawaaqay maxaa haduu fiijiyo safiirka Mareykanka iyo ereyga maxay ahayd ergeyga khaaska kulli subax buu diri karaa wax laga qaadi karana male waa sax waayahay marka shalay bahaysan baa dirtay maantana waa inuu ogaadaa in kan la diray haduu tilaab yaa siiyay horta fursadda who gave them
hadda ruushkii dad kala soo galay oo yiraahdo waxaan ma socon karto China waxay leeyihiin ma socon karto gardarada hal la daayo Soomaaliya laga daayo waay fatsama marka horta hadda wax laga cabsanay Security Council intii la tagay ayaa la soo qaraar Mareykan ay wataan Ingiriiska iyo Faransiiska ay wataan iyo qurunkii hore oo Afrika soo gumeystay oo soo adoonsaday haddana doonay khayraadkooda inay la wareegaan Faransiis oo doonay inuu galbeedka Afrika wuxuu ku hayo ku sameeyo Soomaaliya aan fiirin karin Macron markii ugu horeysay oo u yimaadana waddankaana wuxuu yimaad wax kale u miimaan waayahay waxaan rabnaa waaya gudoomiye waa maasan tahay shirkan u soo noqonaynaa innaga ka soo bilaabayno September wixii ka horeeyay 3 mar waxa lagu shiray magaalada Samareeb Dhow Samareeb Galmudug ugu dambeyn Muqdisho la yimid September 17keeda heshiis la kala saxiixday waa tii Jubbaland iyo Puntland ay ka soo horjeesteen marka ay qadiyad iyo wax kale ay tilmaameen kan hadda birri furmaya rajo intee la eg ayaa gudoomiye laga qabaa in uu miro dhalo doorasho la isku waafaqsan yahay in ay isku soo raacaan madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda wareede waxa la yiri ninka qof hadda ku yimaado ku dhaha 30 kutub oo ahkaam aan hayaa oo cilmigeedana Ilaahay baa isiiyo haramkan ku soo bartay oo inaan ummadana ay u qabtaan raba kaama akhrisanaya ka adag baa leeyahay haye هذه وراك استوكين واقر wax wanaag Soomaali oo laga akhristanay malaha aan ku soo dhameystray nimankan waxaan waa madadaalisay u madadaalinayn iyo waqti ku dhamaaday nasiib xumo markii hore isla xukunkiisa dad kamid ah ayaa la shaqeynay nimankan maxaa wixii mar hore loo hirgelin waayay one man one vote way soo cadaatay in xukunkiisa dadka ku jiray oo asagu aaminsana ay asagana laqdab ku wadeen oo maartay ya kamida gudoomiye ya kamida warheedna waad garanaysaa anigu hadda ma afka kuma balaarin waad garanaysaa waxaad garanaysaa aniga weydiinaysaa kowde ma waxaan rabaa xukunka dawladda madaxweyne Farmaajo uu hogaamiyo dad kamid ah waxaad leedahay waxay la shaqeynayeen dawladaha hadda diidan doorashada qof iyo codda inay ka dhacdo la shaqeynayay wadda iska cadahay ninkan waad garanaysaa ay isweydiya waxaan ku sheegayaa aniga dhageyso haye walaalo been am iska cad oo banaanka taagan oo maartay geed aan lagu soo gabanaynin iyo dulmi iyo khiyaano iyo boqmogoysnimo iyo ummad in la baabiyo la rabaa meesha ka socota waagar ummadan ninka xilka qaado u dhaarteen ha badbaadiyo ilaahina isku xiro ummadan ay isbadbaadiso maamulada hadda Puntland iyo Jubbaland oo aan ka hadlayno oo heshiisyada badan ka baxay shacabka ay matalaan iyo isimadii iyo xildhibaanadii deegaanadaas iyagu ma arkaan qadiyadan Ahmed iyo Saciid inta badan ay heshiisyada ka baxayaan Ahmed iyo Saciid maanta hadii la soo qabto labadoodaba maxay ahayd ma garanayaan jeelkiina ma 20 jiro wala mid la dhahay wax la dhigi lagu tuuro ka gees Puntland iyo Jubbaland waxa weeyaan dabaaldeg baa ka dhacay Ilaahay u sheega shaki kuma oo may hadda hadlaan gudoomiye ay yiraahdaan anagaan hogaamisaan oo wada qalad aad nagu wadaanay dawlad baa ku foorata kismaayo habeen kasta nin baa lagu dilaa maskiin baa lagu dilaa xabad lagu dhuftaa wallahi dadka Puntland waa ka arkaysay wasiirka oranaya Zuba aan ugu fooraarinayna guri kasta ayaan qori keenayna arwaa ninka dhaqaajiya marka waa dadkii waxa weeyaan waa la laanaya masaakiintii waa la laanaya شعبك ولا لا واي عد إني بدبادي الله بهنا عيدا كقرن كنت أدرى من كلا بدبادية ها عبد الله فرماجو عيدا كقرن كمدس ومدها مالها تكن أصول عليه وحوق الله هايستو والإسكد لهي والإسكالان هي وواحد إلهي أنتو دريا الله هي أنا تشرين مصير كذا اللي قو عيار هي باش عالم كمان الله قو هي وحويان هي وننكي إنه بدادي اللي ربع سوها ولا لو عدة سيتو بدادي حدي فلين ما ماشى كودك تو بدادين كنا أنا الله ذيك لي أو كمان دمبيس أبقى أنا كريم ما هذا مال كستواد وقراتي وهذا بدنا ولا لقول بدي قوش لكن هبين الران ما هذا كستب قوش وهو كاتش أنا وادي يسنتوكر وهو كاتش أنا وادي يسنتوكر اللي باي وين الدواء بعند عور كاسي بقرت واي بدوي وما سنتها وحن روا بري عدي الصاقة حتى وحمرها هي ماشي قدام بيسي المدة الصومالية أصيغة كويستي أي معركتي الأركائن وحسن انتقل لي هذا كان عول أذيك قارك وجعلي هاي وداني اسك عدا حفر بدن oo maartay soo baxo wadana midis way cad taa ida hadda mid la isku haysto waaye laakiin waxa la oranayaa inay wax la adeeg baa waaye biri shirka uu furmay kaba soo qaad shirka hadii uu furmo la isku yimaado oo
sidii ay dhacdo soo dhici jirtayba aan hore aan u soo barannay Axmed iyo Siciid ay mar kale ka soo horjeestaan qodobada shirka ka soo baxa maxaa la gudboon madaxda dawladda dhexe madaxda dawladda ana kulli hadii aad weydiinad meesha ayada lagu xiraa lagu jeebeen labada jeelka loo taxabilo both of them toss waa la xirayaa la xiri lahaa ani toss intii loo qabtay gudaha lagu tuuri lahaa kadib maxaa xigaya markaa beesha caalamka leh ka badbaadisay ma ciidankii qaranka oo amar la siiyay baa nin ajnabi ah mase Amazon ka socda mise cadaan oo safaarad ka socdaan tu yimaada hor istaagaya hadda hor istaaga hadda wixii ka qabsada asaga ikhtiyaar uu garan Soomaali waa la garan waad gartay Soomaa marka waxa waaye waa waraaba dawladnimada waa waraaba haddaad ka carartana wuu ku fiijin wuu ku cuni haddaad ku orodana wuu kaa carari Cabdullaahi Farmaajo fiiji cid kasta oo dhanba oo qarannimadii Soomaaliya ku jeesjeesayso ahaadaan ajnabi dibadda laga soo ka imaadeen ha ahaadaan kuwa camiil ah lagu adeeganayo oo gudaha joogaan oo maartay lagu shaqaysanayo haddaad ceyrin weysa oo waraabe ceyri ahlan wasahlan madiidim ceyrin weydi ilaa in ciidanka Soomaaliya u soo bixi ilan saas ma Soomaaliya u baahan tahay adag ma loo baahay waayahay qaranka Soomaaliyeed la meel joogo dhanba iyo shacabka Soomaaliyeed way israacsan yahay ummadii Soomaaliyeed ummadii meel kasta ku nooleed maanta hadii aad cod ka qaado Nairobi Soomaalida ku nool oo Kenyanka boqolka 98 waxay la jiraan dawladda hadda meesha ka dhisan Djibouti hadii aad tahay Soomaaliya Ethiopia hadii aad tahay Soomaaliya dibadda hadii aad tahay Soomaaliya marka afar siyaasiyiin oo tuuganimo iyo bob iyo waxaan soo kale intay meherad moodeen dawladnimada ka arkay daaqada yar oo wax lagu booba kaliya waa inaad maartay laga tashato waa mahadsantahay gudoomiye siyaasiyiinta qaar ee Jubbaland ka soo jeeda madaxweynaha dawladda waxa la leeyahay labada sano ee ku meel gaarka ee Axmed la aqoonsaday isagoo aan la dooranin arintaas aaba qalad ahayd markaas ay ahayd Axmed in shaqo laga qabto oo markaa go'aan laga gaaro ma ku muuqanaysa arinta gudoomiye والله وهرت والله قبل ربي وتلعبوا على قاعد لها تلعبوا ولا مقص على خرجت مركي هاد انت لعب الله قاعده مركي صوت حق لين عرين Soomaali gudaheeda hadana waa qasab in la qaado tilaabo oo meesha laga qaaysta yaa soo doortay ninka Kenya soo doortay Kenya macudna kule هاي الدولة كي وعد كلها صوماليا جبران إمارات صدق إمارات بكله ما طبعا رجل بلد مريكاني إنجليزي سكندنافيان كل أو خيرات صوماليا قاعدة هين ما كله ما قولها الدون كانوا بديين حاويان وإن ديار إنه هذا كل قبطان واحد ودول مجلوه هايو يعني iska soo cadaatay oo garab istaagayaan sida Turkiga sida Ruushka sida China sida hadda kuma leeyahay damo dhan garab laga raadsado wadankaasna al-shabaabna laga xoreeyo sida ugu degdegsiyo badan qaranka ciidanka la dhiso nimankaas oo kale la soo qabto oo ay la mariyo abaalkii ay maaragtay waxay sidoo ay u dhaqanayaan oo kale u dhaqdo dhan la marin lahaa hagaag waa ku soo gabagabeynaya waxaan rabaa maadaama waqtigii doorashada la soo dhaafay oo December ay ahayd xilligii xilhaynta golaha sharci dejinta ee baarlamaanka uu ku ekaa fulintana 8 Febraayo ahayd waxa la leeyahay siyaasiyiinta qaar oo siyaasadda falanqeeya dalka amnigiisa laga shaqeeyo meelaha shabaab ay joogaanna sida ugu dhaqsiyaha badan hadda adiga aad tilmaamayso ha looga ciribtiro maamulladana hal la ogeysiyo in federaalka dawlad goboleedyada ay yihiin ismaamul dawladda federaalka hoos imaado amar aysan ka soo bixi karin 2 sano gudaheedna inta lagu qabto 2 sano xukuumadan hadda shaqeysa ha loogu daray baarlamaankan kadibna doorasho qof iyo cod ah oo nidaamsan oo amnigeeda iyo dalkii oo dhan oo dawladda ay gacanta ku hayso hal la aado aragti noocaas ma ku muuqanaysa gudoomiye Faarax aragtidaas yaa saliim xalaal aqli iyo xikmad ku jirta si degdeg in ciidamadii tababarka meel kasta loo geeyay dib loogu soo celiyo wadanka al-shabaab looga tirtiro maxay ahayd wadanka gudihiisa shacabka Soomaaliyeed la gaarsiiyo xukunkii meel kasta oo dhanba amnigii oo haday tahay Puntland oo dhanba qaranka la wareegto dawladda central ma samayn karo 2 sano baad mooday inay tahay way hadda si degdeg loo
waayahay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka dowladda Kenya siyaasi falanqeeya arrimaha siyaasadda gudoomiye Faarax aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa aad baad mahadsantihiin aad iyo aad baad mahadsantihiin wagaag aad buu mahadsan yahay gudoomiye Faarax barnaamijkii gaarka ahaa ama waraysiga gaarka ahaa ee gudoomiye Faarax macallin oo dalka Kenya ku sugan intaas ayaan ku ekeenaynaa shirka berri iyo waxa ka soo bixi doona ayaan ku qaada dhigaynay Puntland iyo Jubbaland waxa laga filan karo maalinta berri ah naga isku duubana. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.